asalaamu calaykum asxaabi meel kasta aad joogtaan iyo si kastaad noo daawanaysaan magacaygu waa axmed saliim janalkaad daawanaysaanna waa saliim somaali t v fadlan hadday tahay markii kuugu horraysay sabskrayb saar magaalada jalaalabad waxay ku taallaa bariga dalka afghanistan gaar ahaan gobolka buuraleyda ee nahru kaabula waana magaalo madaxda gobolka nangahara magaaladan oo dhacdo xuduudda dalalka Bakistan iyo Afghanistan dadkeedu waxay ku tiirsan yihiin wax soo saarka dhaqashada xoolaha tacbashada beeraha iyagoona farsameeya suufka qasabka soona saara dalagga qaybihiisa kala duwan dadka waxbarto magaalada Jalaalabad waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba 30 inkastoo ay waxbarashadu ay tahay mid free ah haddana dadku uma jajabna inay waxbartaan iskuulkii ugu horreeyay waxaa la aasaasay sanadkii 1904 waana iskuul gaar u ah wiilasha halka la aasaasay iskuulkii labaad sanadkii 1963 ka gadaalo dagaalkii koowaad ee dunida waana iskuul gaar u ah gabdhaha oo kaliya magaalada Jalaalabad magaalada Jalaalabad waxay leedahay jaamacad lagu magacaabo Nangara taasoo ah jaamacadda ugu tayada badan guud ahaan dalka markii laga yimaado jaamacadda Kabul University